xeeladaha xukuumadda Soomaaliland ku wiiqday huwanta waa moorta ay ku saabsan tahay faaladeena warka waana qalinkii Cumar Maxamed Faaraxa tani markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka baxday midowgii Soomaaliya isla markaana rabitaanka shacbiga lagu biinayay dawladnimada Soomaaliland waxay jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo dabaalatay turaanturooyin maxalli ah oo ay kaga badbaaday inay hagaasto dawladnimadii curdinka ahayd sagaashamaadkii heshiiskii ummadda ee Soomaaliland lagu unkay wuxuu ku salaysan yahay walaalnimo sinaan iyo cadaalad sidoo kale waxa dib u heshiisiintii qaramayntii maleeshiyaadka iyo duruufiyaadka laga soo baxay yuhunta iyo kalfurnaanta ummadda reer Soomaaliland oo yaqaan dirirta iyo samaxada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dawladnimadeeda aan caalamku waxba ku darsanin ay ku samata baxday sidii ay isaga moostay in dawladaha shisheeye aanay saameyn ku yeelan arrimaha masiiriga taasoo weli dhaqan ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhagan tahay waxa jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 7 bilood iyo badh ku socdo duulaan huwaysan oo huwanta Puntland ay hogaaminaysa ay ku soo qaadeen magaalada Laascaanood kuwaas oo burbur u horseeday magaalada dagaalkii ay garideenna uu qasbay in shacbigii ay ka daaduumaan guryahoodii markii uu dagaalkaasi dhacay ee simadii Soonna ay noqdeen qaar loo adeegsado burburinta magaaladoodii waxaana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay dadaal weyn u gashay inay dagaalkaasi si xeelad leh ugu naafayso cadawga dibadda kaga soo duulay waxaana ay dadka siyaasadda falanqeeya aaminsan yihiin in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo maanka ku hayay yaraynta khasaaraha uu rafaadiyay maleeshiyaadkii soo duulay kuwaas oo aan marnaba guul ka keenin weeraradii ay ku qaadeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaas daraadeed xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliland waxa ka go'an sidii ay dhinacyada soo duulay uga saari lahaayeen xuduudaha Soomaaliland waxa muddooyinkan cadawgu isku maaweelinaya in Soomaaliland ay ku furantay furin kale oo dagaal taasoo riyo maalmeed iyadoo Soomaaliland dhaqan u leedahay inay xal gudaheeda ka gaadho khilaaf kasta oo siyaasadeed imikana lagu fogan yahay furdaaminta arrintaasi ugu dambeyn Soomaaliland dib ugama noqonayso furimaha cadawgu ka joogo ilaa ay ka hirto xuduudaheeda waxaana isteerinka u haya hogaamiye waaye arag qadiyadan oo kale oo cadawgu ka kayrkayraan intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo qoray Cumar Maxamed Faarax waxaan idin la socodsiinayaa aniga Wasaab Cabdi Goole